wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed oo warbaahinta waqriyo murtiyeedka ay ka soo saareen arrintan ayaa sheegay kadib markii ay jirteen muranada ka dhashay isla markaana isla qaateen inaanay dan ugu jirin dalka ay go'aankan soo saareen wasiirka oo ka hadlay go'aanada ay ka soo saareen arrinta muranka dhalisay ee kaniisadda isla markaana sababeynaya qodobada go'aanka ayaa waxa uu yidhi taariikh ahaan kaniisaddan waxa uu gumaystihii ingiriisku ee dalkan ka talin jiray uu hargeysa ka dhistay muddo hadda laga joogo 70 sano haddaba xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ogsoon isla markaana ku baraarugsan mas'uuliyadda iyo waajibaadka dastuuriga ah ee ka saaran ilaalinta diinta iyo mabaadi'da islaamka iyadoo ku dhaqmaysa sida uu qabo qodobka shanaad ee dastuurka qaranka in aan sinaba loo dhaqan gelin karin wax kasta oo ka hor imanaya shariicada islaamka iyadoo tixgelinaysa talooyinkii iyo baaqyadii iyo fatwadii ay soo jeediyeen culimada waaweyn ee dalka iyadoo tixgelinaysa gaar ahaan dareenka bulshada iyo baaqyada uga imanaya shacabkeeda sidaa daraaddeed xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay halkan ku cadaynaysaa kow inaanay jirin wax heshiis ah oo ay xukuumaddu la gashay cidnaba oo ku saabsan arrinta kaniisadda laba in kaniisadda iyada ah ee muranka dhalisay ay u xidhan tahay una xidhnaan doonto sidii awalba u xidhnayd muddadii 30 sano ee u dambeysay go'aanka maanta ee xukuumadda Soomaaliland ayaa ka dambeeyay baaqiyo kala duwan oo culimada iyo qaybaha kale ee bulshada ugu jeediyeen in la joojiyo dib u furista iyo dayactirka kaniisadda muddo ku sugan 70 sano ka hor ka dhistay magaalada Hargeysa maxmiyadda Ingiriisku xalafiidka ayay ahayd markii qaar ka mid ah culimada dalku ay baaq ka soo saareen arrintani waxaana shir jiraayadu arrintani ay kaga hadlayeen ku sheegeen in aanay dani ugu jirin dalka baaqay culimadu soo saareen oo ka koobnaa 10 qodob ayaa sidoo kale waxa ay baaq u jeedinayeen bulshada shirkaasi jiraayad kadib ayaa Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre oo loo yaqaan Ismaaciil Deeg oo culimada baaqa soo saartay kamid ahaa oo arrintaasi ka wareystay waxa uu VOA u sheegay in culimada baaqan ku jirta ay yihiin kuwa inta badan jooga magaalooyinka dalka qodobada baaqay culimadu soo saareen ayaa waxa kamid ahaa mid ay baaq ugu dirayeen bulshada ummadda reer Soomaaliland waxaanu dareensiinaynaa inay lagama maarmaan tahay ay dantuna ay ku jirto midnimadooda wadajirkooda iyo xasiloonidooda waxaanu ugu baaqaynaa ummadda reer Soomaaliland in la ilaaliyo nabadgelyada lagana foojignaado wax kasta oo khalkhal gelin karaya nabadgelyada xasiloonida iyo wadajirka hore ayaa wasiirka diinta iyo awqaafta u sheegay inaanay jirin kaniisad cusub oo dalka laga dhisay isla markaana diiniyan iyo sharciyan midna aan loo ogolayn